الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. هاجرداموينكي iyo jallafooyinkii xisbiga kulmiye 7 sanadood dalka haystay uu u dhigayay xisbiga wacid waa sababta ay ku maqayn maanta 21 xildhibaan oo baarlamaanka waa sababta uu looga maqayn maanta kursiga ugu weyn dalka ee gudoomiyaha baarlamaanka oo si faqayral sharciga ku jooga iyadoo taa aan u samirnay waana sababtii looga sameystay xeerkan la yiraahdo xeer foodin sababtii loo sameeyay xeerkan la yiraahdo xeer foodin weeya iyadoo taa aan u samirnay in 21 xildhibaan oo baarlamaanka ay ku maqayn si faqayral sharciga oo ay ugu maqan yihiin xisbi aan doorasho baarlamaan galin oo uu uga maqan yahay gudoomiyihii baarlamaanka oo si faqayral sharciga ku jooga maanta sababta loo sameystay xeerkan xeer foodin la yiraahdo oo ninka Cali Gure la yiraahdo maqan imika xisbiga kulmiye u tagay uu ku sheegi jiray shirqool foodin waxa weeyaan in maanta haddana la yiraahdo waxa maantana xisbigii kulmiye galay oo si faqayral sharciga u galay xildhibaanadii golaha deegaanka iyo maayiradii golaha deegaanka ee ka soo jeeday xisbiga wacid oo si faqayral sharciga ku jooga in ugu tagay xisbiga kulmiye ayaa maanta keentay inaanu ka qabanno in shirkan jaraa'id oo ay tahay waliba inaanan yeelin kuna qancayn sidii tii horena aanan ugu samrayn ee heerka ay nala martay ugu sareeyay gaari doona sababtoo ay tahay waxa weeyaan xisbiga kulmiye 7 sano dalka joogay wuxuu sameeyay sharci jabintii ugu weyneed ee dalka soo marta sharci jabintii ugu weyneed ee dalka soo marta una dul qaadan meeyay xisbiga wacid oo dul qaadan maayo halka ay nala gaadho maxkamadda ay nala gaadho guddiga diiwaangelinta ay nala gaadho haddii ay dhici weydo waxay u ekaanaysaa macno kale oo ah in dalkuba ku burburadeen waayo waxa ku dhacay xisbiga wacid waxa weeyaan waa hagardaamo iyo dhiilo ku dhacday xisbiga wacid oo aan u jeedinayno waliba shicibka waxa ku maqan halkan 21 xildhibaan oo baarlamaanka naga maqan gudoomiyihii baarlamaanka naga maqan waxay la joogaan xisbi aan doorasho baarlamaan galin lama odhan karo baarlamaanka xildhibaanada baarlamaanka ee wadani lama odhan karo waxa dheer maanta in la yiraahdo waxa ka tagay xildhibaanadii golaha deegaanka ee ka soo baxay xisbiga wacid baa tagay oo kulmiye tagay iyadoo loo ogol yahay in 6 bilood ka bacdi 10 sanadood liisanka loo haysto ka bacdi ay tay karaan sida aawadeed meel wal oo ay nala marto waanu gaarina haddii nalagu qancin waayo xeerarka dalku sida u jabnaadan annaguna waan jabinaynaa hal la ogaado madaxweynahana waanu sheegay wallahi waanu jabinaynaa